إخواني أحبابي الصغار، أهلا أهلا فيكم أشرقت الأنوار، بالورد نحييكم وبكل الأزهار، أهلا أهلا فيكم أشرقت الأنوار. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كلنتي وعن كسو دواذا برنامج كينيها قصص القرآن للأطفال. قصة إنما أنت حكساب سنتاي أصحاب السبت. هيا نجلس مع كل الإخوان، نتسلى ونتعلم وتذوب الأحزان، نسمع قصة مفيدة على مر الأزمان، نتعلم وننشد مع كل الأطيار. قصدان waxay ka dhacday meel tuulo ah oo ahayd tuulo xeebeed ama tuulo ku taal xeebta. tuuladani waxaa deganaa qoom ka mid ah reer bani Israa'iil oo ahaa qolo badankood Ilaahay aad uga fog, akhrisan jiray kitaabka Tawraad ee Ilaahay uu ku soo dejiyay Nabi Muuse calayhi salaam, laakiin aanan ku dhaqmi jirin. qoladaas waxaa Ilaahay ku imtixaamay in laga xarimo ka kalluumaysiga badda maalinka Sabtiga. waxaa kaloo lagu imtixaamay in maalinkaasi Sabtiga ah kalluunka uu aad ugu soo badan jiray xeebta. tiro badan kalluun waaweyn ayaa xeebta ka soo buuxsami jiray, laakiin maalmaha kale kalluunka xeebta waa laga weyn jiray. qofku inuu maalmahaasi kala kalluumaystana dhib badan ayuu kala kulmi jiray. muddo markay saa ku jireen waxaa dhacday in qaar ayaga ka mida uu shaydaanku u waswaasiyo uu ku yidhaahdo sidaan kuma jiri kartaane xiilad raadsada. way fakareen, waxay bilaabeen inay sameeyaan in ay godad ka qotaan xeebta ka hor maalinka Sabtiga. godadkaas iyo teedadkaas ay samaysteen ay ku soo furaan biyihii badda oo ay maalinka Sabtiga ah baddu markay hirarkeedii ay yimaadaan oo kalluunku uu xeebta ka soo buuxsamo, in kalluunkii uu godadkii la qoday galo uu ka buuxsamo oo hadhow maalmaha ku xigahay kalluunkii uusan dib ugu noqonin badweynta ama badda uusan dib ugu noqonin. xiiladaas markay samaysteen waxay bilaabeen maalintii ku xigtay inay godadkoodii kala soo baxaan kalluunkii faraha badnaa ee godka uga buuxsamay oo ay markaasi ama iibiyaan ama ay iyagu isticmaalaan. dad yar ayaa markii hore arrintaa bilaabay. markii la weydiiyey oo la yidhi waxaan aad samaynaysaan waa maxay, waxay yidhaahdeen arrintaani annagu ma aanan kalluumaysanin maalinka Sabtiga ah, waxaa uun samaysanay in aan meel ku aruurinay maalinka Axaddan aan kasoo kalluumaysanay. dadkii marba qolo cusub ayaa ku daysatay oo dhaqankii samaysay ilaa tuuladii ay ku dhex faaftay caadadan ah in laga xiiladaysto amarka Ilaahay oo kalluunkii maalinka Sabtiga godad loo qoto oo maalinka ku xigana laga soo gurto godadkii. waxaa jiray dad wanaagsan oo iyaga tuulada degan, laakiin aanan khaladka dadka tuulada degan badankood ay samaynayaan iyo xiiladan xun aanan samayn jirin. dadkaasi wanaagsanaa qaar ka mid ah ayaa waxay sameeyeen in dadkii khaladka samaynayay ay u tagaan oo ay ku dhahaan Ilaahay ka cabsada, iska daaya khaladkan, iska joojiya ka xiiladaysiga amarka Ilaahay. Ilaahay wuu idiin jeedaa, mana ka xiiladaysan kartaan, wuu idin arkayaa waxa aad samaynaysaan. waxaa kaloo jiray dadkii wanaagsanaa qaar ka mid ah oo ayaga dadkan khaladka aanan ka celin jirin, aanan waanin jirin. waxay la yaabi jireen kuwaan waaninaya, waxayna ku dhihi jireen maxaad u waaninaysaan dad aad u jeedaan in ay halaagsami doonaan oo Ilaahay amarkiisa ay diideen oo halaag ay u socdaan, maad iska dhaaftaan. dadka waaninayay waxay yiraahdeen dadkan waxaan u waaninaynaa laba sabab. sababta koowaad inaan Ilaahay agtiisa kaga helno cudurdaar ah in annaga khaladkan aan ka bari noqonay, aanan samaynin, dadkii samaynayana aan ka celinay oo aan waaninay. midda kalena in dadkaani ay wanaagsanaadaan oo ay khaladka iska dhaafaan ayaan rajaynaynaa, waan u sheegaynaa, waana ka celinaynaa. in ay ka noqdaan ayaa dhici karta. waxaa dhacday in dadkii ay khaladkii kusii adkaysteen oo ay diideen waanadii la waaniyey oo ay xumaantoodii sii wateen. dadkii wanaagsanaa waxay go'aan ku gaareen in ay dadkan la noolaan karin
waxayna dhaheen tuulada in lama deganaanayno waana ay ka baxeen waana ay ka fogaadeen ayagoo markaasi dhahaya dadkaani inay halaagsamaan ay halis ugu socdaan markii ay ka fogaadeen qoladii khaladkooda ay ku sii adkaysteen ayaa ilaahay haligay qoladii xumaanta ku jirtay qoladii dadka khaladka ka celinaysay ilaahay u badbaadiyay qoladii la haligay waxaa laga dhigay daanyaro waxaa la sheegaa in qoladaasi la haligay oo daanyarada laga dhigay in ay garan jireen qolada kaleeto oo maaragtay aan la haligin nin kasta ninkii qaraabadiisa ah waa uu garan jiray laakiin qolada wanaagsanaa iyagu way arkeen dadkii xumaa in daanyaro laga dhigay laakiin ma ay kala garanayaan kii qaraabada la ahaa iyo kii kale laakiin waxaa dhici jirtay in kii kuwii la haligay ka mid ah inuu soo aado qoladii qaraabadiisa ahayd oo wanaagsanaa inuu u yimaado oo dharkiisa carafsado oo markaasi ku ooyo ninkaa marka wanaagsanaa markaasi markuu arka ninkaani ama daanyarka laga dhigay wuu fahmayaa marka uu ku agoynayo markaas wuxuu ku dhihi jiray soo kaamaanan celin khaladka soo kuma sheegin soo kuma dhihin iska dhaaf markaas ayuu madaxa dhaqdhaqaajinayaa iyadoo macnaheedu ay tahay haa waad iga celisay khaladka qisada halkaas ayay ku dhammaatay waxaana maaragtay ka faa'iidaysanaynaa in ilaahay lagu caasiyo oo lagu adkaysto in ay halis tahay dhibaato badanna qofka adduun iyo aakhir uu kala kulmayo dhanka kalena in dadka khaladka laga celiyo oo loo sheego in wax fiican ay tahay ilaahayna qofka uu ku badbaadinayo adduun iyo aakhiro waad mahadsantihiin la socda sheekooyinka soo socda wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين